halkani waa masaajidka weyn Ayuub al-Ansari waxa lagu magac daray saxaabiga weynaa Ayuub al-Ansari oo ka mid ah saxaabta Nabiga sallallahu alayhi wa sallam masaajidka waxa la sameeyay sanadkii 1408 waana meesha ku asiyay Ayuub al-Ansari masaajidka Aba Ayuub al-Ansari waxa la sameeyay boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxa yimaada dalxiisayaal aad u tiro badan oo kala yimaada daafaha caalamka si ay u arkaan qabriga iyo masaajidka Aba Ayuub al-Ansari oo ku yaala magaalada qadiimiga Istanbul ee waddanka Turkiga Abdurrahman Hassan Noor waxa uu shariicada islaamka ka bartaa dalka Saudi Arabia waxa uu sharaxaya taariikhda saxaabiga Aba Ayuub al-Ansari wuxuu ku caan yahay Abi Ayuub al-Ansari waxa la yiraahdaa Khalid bin Zayd bin Kulayb al-Khazraji wuxuu ka qayb galay macrakadii Badr iyo Tal Aqaba iyo wuxuu la dagaalamay dagaalkii Khawaarijka oo Ali bin Abi Talib ku jiray buu ka qayb galay wuxuu dhintay sanada konton iyo laba hijriga uu dhintay saxaabigii hashi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aqalkiisi ku hordegtay markuu Nabi Muhammad yiri itrukuha fahiya ma'mura aqalka Abi Ayuub al-Ansari bi ku degtay markaasna bildan buu Nabi Muhammad aqalkiisa ku degay kani waa Xuseen Qaasim wuxuu ka badiyay ardayda Soomaalida ee wax ka barata jaamacadaha dalka Turkiga waxa uu ku tukadaa masaajidka Aba Ayuub al-Ansari waxa uu warbixin kooban ka bixinayaa taariikhda masaajidka masjidkan waxa loo yaqaanaa Ayuub Sultan Masjid Turkida wuxuu yaqaanaan Ayuub Sultan Jami waxa uu ka mid yahay masaajidka ugu qiimaha badan magaalada waxaana aasaasay dawladda al-Cusmaaniya markay furtay magaalada Constantinople oo ku beegan 1453 Constantinople 5 sano ka bacdi masaajidkan baa halka laga aasaasay waxaana taariikhdiisa ay sida la sheego waa 1458 masaajidkan waa masaajid aad taariikhiya oo qiimo weyn ku leh dadkan muslimiinta ah ee magaalada ku nool masaajidkan maalmaha jimcaha kale aad baa loo soo buuxiyaa Aba Ayuub al-Ansari wuxuu ka mid ahaa ciidamadii Islaamka ee doonayay inay furtaan caasimadda Roomaanka magaalada Constantinople ee hadda loo yaqaan Istanbul xilligii khilaafada Islaamka uu hayay Muawiya bin Abi Sufyan saxaabiga Aba Ayuub al-Ansari waxa ku yimi xanuun waan u geeriyooday Ilaahay raali ka ahaade sanadkii 4 hijriyada taariikhda milaadiguna ahayd 647 cimrigiisuna wuxuu ahaa 101 sano jir waxaana lagu aasay magaalada Istanbul Fahad Shaakir Xaaji Xasan Home Cable TV Istanbul